بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسن أصحابتي قاليقة اسكو soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba insha Allah. waxaan rajeynayaa meel walba joogtaan caafimaad haduu Ilaahay yiraahdo. asxaabtayda qaaliga ah, welcome back. waan soo laabtay insha Allah. baryahan waan kala baadnay, waan kala maqneen. maasha Allah, khayr ayaan la maqnaa. alxamdulillah, umul ayaan noqday, waan dhalay, baby ayaa igu soo kordhay ama familkaba ku soo kordhay. maasha Allah, tabaarakallah, new baby ayaa nagu soo kordhay, sidaas aawadeed ayaan iga maqneen. alxamdulillah rabbil caalamiin. ilaahay intaan haysanaha ku arsaaqo, ilaahay ha siiyo awlaad saalixa oo baari ah, anagana baari Allah nooga dhigo, oo kuwiina maqlo oo na adeeco, diintoodana anfaca, ilaahay ha nooga dhigo. alxamdulillah, maasha Allah, tabaarakallah. asxaabtayda qaaliga ah, muddo 2 bilood waan kala maqneen. maasha Allah, hadda ayaan dib idinkugu soo noqday. alxamdulillah, waan caafimaad qabnaa. idinkana waxaan rajeynayaa dhammaantiinba walaalada igu xiran meel walba joogtaan inaad caafimaad qabtaan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ablaha iga soo wardoonay, hablihii ogaan webi ogaayeen oo aan iswareysanayno, isxog ogeyn. maasha Allah, youtube-leyda qaar ayaan isku xirannahay, gabdhaha qaar ayaan iswareysanaa oo isku xirannahay. marka intii og way ogeyd, intaan ogeyn iga soo wardoontayna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin walaaladey. jazaakumullah khayr. marka alxamdulillah rabbil caalamiin, waa caafimaad qabnaa maasha Allah. walaaladey qaaliga dib ayaan igu soo noqday. fiidiyowadeeni dib ayay noogu bilaaban doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo. idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad noo share gareysaan, like, share, comment. waan iniga mahadcelinaynaa sidaan mar walbaba idinkaga mahadcelin jiray. marka walaaladey qaaliga ah, maadaama aan yaro maqnaa, anigana waxaa waaye channelka xoogaa hoos u dhac ayaa ku imaanayo. muddo 2 bilood waan ka maqnaa. marka alxamdulillah, waxaan idinka rajeynayaa inaad maxaa iraahdaa ii share gareysaan fiidiyoyada insha Allah bidnillaahi kariim, oo halkii hore aan joogay dib iigu soo celisaan hadduu Ilaahay yiraahdo. asxaabta cusubna waxaan leenahay haddaad channelka soo booqataan, maasha Allah, subscribe-ka noo saara, gambaleelkana furta si aad uga mid noqotaan walaalada igu xiran insha Allah bidnillaahi kariim. la wadaaga asxaabtiina haddaa inaba ka heshaan channelkayga, asxaabtiina la wadaaga iyo sii share gareeya insha Allah. waxaan kaloo idin leeyahay laagta hala ii saaro insha Allah. laagta waxay naga caawinaysaa inuu fiidiyogeena dad badan arko hadduu Ilaahay yiraahdo. wax qiimo ah idinkugu fadhidana ma lahan, lacag idinkama gadno insha Allah bidnillaahi kariim. waxaan rabaa inaad kor ii soo qaadaan walaaladii qaaliga ah, sidaad iiga barateen fiidiyoyadii aad iiga barateen ayaan dib niigu soo celin doonaa insha Allah. hadday tahay alaabtii timaha, hadday tahay maxaa iraahdaa sida hablaha yaryar timaha loogu hagaajiyo oo easy ah, oo yacni markaas iskuulka ay ku aadayaan si yaroo fudud ah ugu sameysan karto. horena waan usoo geliyey, hablo badan ayaa ka helay insha Allah. dibna waan iigu soo celin doonaa. hadday tahay cunto karintii insha Allah bidnillaahi kariim. waa kala baadnay walaaladii qaaliga insha Allah. waxaan noo rajeynayaa kuwii dib iskugu soo noqdo inaan noqono hadduu Ilaahay nafta yaree baaqi nooga dhigo hadduu Ilaahay yiraahdo. marka asxaabteyda qaaliga ah, isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay. caafimaad ayaan iskugu soo noqonay, alxamdulillah rabbil caalamiin. maanta waxaan noo wadaana fiideo yar insha Allah bidnillaahi kariim, oo aan maalinta jumcaha ah ugu talagalay insha Allah bidnillaahi kariim. sidaad aragtaanba fadhigii ayaan soo hagaajinay maasha Allah, tabaarakallah, oo aan soo yaro kala bedelnay, wax saasna kamaan bedelin. marka barkimooyinkun baan wax ka yara bedelay insha Allah. waxaa waaye adigoo gurigaaga aadan wada bedelin ayaad wax ka yara bedeli kartaa, oo nashqada wax yar aad ka bedelan kartaa insha Allah. marka hadda sidaad aragtaanba barkimooyinkan silfarka cadaanka ah ayaan kusoo kordhiyey, birbirqaaya galalkaas ayaan soo gashtay. barkimooyinkeygii hore ii yaalay oo galalkii hore ayaan ka bixiyey qaarkood, sidaad aragtaanba maasha Allah, tabaarakallah. marka waxaa waaye guriga adigoon yara maxaa iraahdaa wada bedelin ayaad iska yara nadaamin kartaa insha Allah bidnillaahi kariim. asxaabteeda qaaliga ah, marka maanta jadwalkeenii maanta ayaa intaa noo ahaa insha Allah, ilaa iyo qadada yar aan sameysanayno. isla socod wanaagsan. qada yarna waan sameysan doonaa insha Allah bidnillaahi kariim. insha Allah bidnillaahi kariim, fiidiyoyada iiga barateena dib ayaan idinkugu soo celin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka asxaabteyda qaaliga ah, hablo badan ayaa horta mararka qaarkood wax isoo weydiiyaan. qaar ka mid ah waxay isoo weydiiyeen maradan ii saaran kuraasta. marka marada kuraasta ii saaran aniga waxaan ku maajgareystay rooga, sidaad aragtaan qayb yar oo buni ah ayaa ku jirta. marka waxaan ku maajgareystay rooga, ma aha maro oo loogu talagalay kuraasta, laakiin waa maro ani aan yacni ku maajgareystay oo aniga aan saartay. oo galal barkimooyinna way wadataa, 4 galoo barkin ah ayaa wadataa.
marka hadda laba ka mid ah ayaa barkimooyinka iigu jira, labada kalena waan ka bixiyey. marka asxaabteeda qaaliga ah, gabdhaha isoo weydiinayo maradaas kuraasta ii saaran waxaan leeyahay waa maro aniga aan ku maajgareystay, maro kursi ma ahan. marka haddaa rabto waad sameysan kartaa sidaas oo kale. waa kuwaan hadda galalkooda, galalkan ayay wataan. marka waxay ahaayeen maro maxaa iraahdaay daah loogu talagalay, balse aniga ayaa saartay kuraasta oon ku maajgareystay maadaama roogayga buniyar uu ku dhex jiro. marka gabdhihii soo weydiinayay sidaas ayaan idinkaga shaafiyey. aan jeclahay inaad fahanteen maradaas waxa ay tahay. asxaabta qaaliga ah, waxaan idin leeyahay maxaa iraahdaay fiidiyoyadeenii aad hore noogu taqaaneen iyo kuwo kaloo ka badanba insha allah. waxyaabo badan oo cusub ayaan noo soo wadaa hadduu ilaahay yiraahdo. waxaa ka mid ah maadaama aan aniga hadda umul ahay, waxyaabaha aan cuno oo aan u isticmaalo yacni in ay jirkeyga weyd uuna korin ama aanan buurno yeelanin. marka gabadheedii hore ayaa waxoogaa yara cayilay uun markaan dhalay. marka cayilka uu iga soo booday oo waa nacay. markaas umushana waxaa waaye qofka hooyo markay tahay umul tahay oo la jaqaayo waxay isleedahay ilmaha caanaha kaa helo wax walba iska yara cun, marka baahida ku qabataba waxbaa cunaysaa. marka asxaabteeda qaaliga ah, jadwalkii sanadkaas gabadheeda aan dhalay maxaa iraahdaay jadwal ka duwan ayaan hadda ku socdaa insha allah. waana idinla soo wadaagi doonaa. hooyooyinka umusha ah ee dhalayaana maxaa iraahdaay ama dhalayba wuu anfici doonaa insha allah bidnillaahi kariim. intii ka faa'iideysan karta ee jecel inay ka faa'iideysato. marka asxaabteeda qaaliga ah, cuntadeeda waxbaan ka bedelay maxaa iraahdaay si uuna weydna ii korin oonan u naaxin. maxaa iraahdaay naaskana caano beebiga uga helo insha allah. waxyaabaha aan cuno, waxyaabaha aan cabo all waan idinla soo wadaagi doonaa fiidiyoyadaasna hadduu ilaahay yiraahdo insha allah bidnillaahi kariim. hadduu ilaahay nafta baaqi nooga dhigo. naftan waa dayn weyn, waxaa waaye waa iska soconaa ma ogi anaga goor yacni war uma hayno iyo qaabka ku dambeyn doonto waqtiga aan dhiman doono. marka haddii ilaahay nafta baaqi nooga dhigo insha allah waa idinla soo socodsiin doonaa fiidiyoyadaasna hadduu ilaahay yiraahdo. marka walaaladii qaaliga ah ii sheer gareeya idinkana insha allah bidnillaahi kariim. isku xirnaan hadduu ilaahay yiraahdo asxaabta igu xiran oo dhan. hadda markaa waxaan sameysanaynaa qada yar insha allah. maanta in yar ayaan idinla wadaagayaa. hadda halkan waxaan ku sameysanayaa waa chicken qada ah insha allah bidnillaahi kariim. birtaas gariirka loogu talagalay ayaan ku duwanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. chickenkeena wax saliida uma dhaweyneyno insha allah. waa chickenka jiirka ah. marka xawaashiyadeysa ayaa soo marsaday. marka kadibna birtan ayaan ku duwanayaa hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan kaloo u sameysan doonaa qudrad insha allah bidnillaahi kariim. sidaan ognahayna chickenka weyd kuma saarayo. maxaa iraahdaa dadka weydka inay iska ridaan damcaan waxay cunaan isaga iyo kalluunka iyo hilibka cas ayaa laga fogaadaa. marka hadda asxaabteeda chickenkeeni waa noo diyaar, sidaad aragtaanba waan kasoo ridanaynaa insha allah. maxaa iraahdaa waxaan ugu talagalnay in aan kula cunno ayaa haddana maxaa iraahdaa idinla wadaagi doonaa. qudrad yar ayaan diyaarsaday insha allah bidnillaahi kariim. marka halkan waxaa ii saaran waa broccoli sidaad aragtaan. liindhanaan aniga maba ka haraba, cuntada cunaaya liindhanaan la-aanteed ma cuno. tomaato, salaato, maxaa iraahdaa waxaan kaloo ku jarjartay waa basal baar insha allah sidaad ujeedaanba qajaarkii oo salaatada ku dhex jirta. marka in yar oo baasta ah ayaan gees ka soo saaranay hadduu ilaahay yiraahdo oo aan yacni ku qaadqaadan doonaa. mana isku badinayno baastada insha allah because baastada sidaan ognahayba waxaa ku saareysaa miisaan haddii aad badsato. marka in yar oo adiga 3 qaando ah ama 5 jeer aad afka gashan karto. muhiimadda waa chickenka iyo ansalaatada qudradda in aad badsato iyo biyaha. marka walaaladii waa idinla soo wadaagi doonaa. waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.